laga soo bilaabo jasiirad sabool ah oo kaneeco ay ka buuxaan ilaa dhaqaalaha dunida ugu awooda badan. Singapore ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan horumarka Singapore. Ka hor intaynan mowduucan bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Laga soo bilaabo jasiirad sabool ah oo ay ka buuxaan kaneeco ilaa dhaqaalaha dunida ugu awooda badan. Sidaan ayuu Lee Kuan Yew ku aasaasay Singapore-ta aan maanta ognahay. Lee Kuan Yew wuxuu noqday ra'iisul wasaare 1959 kadib doorashooyin dimuqraadi ah. Singapore waxay ku biirtay isutaga Malaysia 1963 kadib markii ay xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska. Laakiin 2 sano kadib Malaysia ayaa go'aansatay inay ka tagto. Sidaas darteed, Singapore waxay noqotay dal madax bannaan. Waana xilligii Lee Kuan Yew uu ooyay muxuu ku qabanayaa waddan faqri ah ee ay ku dul daadsan yihiin qashinka oo ayna ka buuxaan kaneeco. Badkiisuna aanan ka badnayn 720 kiiloomitir oo isku weer ah. Dadkiisuna aysan ururin afaf guud, dhalasho ama taariikh. Intaas waxaa sii dheer, uma diyaarsana shidaal iyo dahab la iibiyo. Dhibaatooyinka waxay keenaan waxyaabo yaab leh. Dhibaatada wuu aqbalay Lee Kuan Yew asagoo ay wehelinayaan koox khubaro oo ka tirsan dowladdiisa. Waxay dejiyeen qorshe ay ku horumarinayaan dalka iyagoo soo jiidanaya maalgashi shisheeye, isla markaana ku riixaya dadka reer Singapore inay wax bartaan si kastoo ay tahay iyadoo aan loo eegin siyaasad gebi ahaanba. Waqtiga hadda waa waqtigii shaqada oo keliya. Singapore waxay awooday inay gasho caalamka warshadaha, samaynta maraakiibta iyo injineernimada macdanta batroolka, kiimikada iyo aaladaha korontada. Waxaa maalgeliyay shirkadaha ugu waaweyn caalamka sida Shell iyo sagaashamaadkii waxay noqotay xarunta saddexaad ee ugu weyn saliidda caalamka iyo xarunta saddexaad ka ganacsiga saliidda ee ugu weyn caalamka kadib New York iyo London. Waxayna adduunka kor ugu qaaday wax soo saarka kiimikada. Waxayna noqotay dekada Singapore dekadaha ugu mashquulka badan caalamka. Dhanka kale, guud ahaan bulshada ayaa wax baratay oo ku hadashay luqadda Ingiriiska, taas oo noqotay luqadda rasmiga ee waddanka. Halka Singapore ay dhaqaale ahaan ka saraysay, waxay awooday in ay xaliso dhibaatada guryaha aan rasmiga ahayn iyadoo loo qoondeeyay dhulka laguna wareejiyay waaxda gaarka loo leeyahay iyadoo lagu bedelay bixinta adeegyo tayo sare leh. Sidaa darteed, 85% reer Singapore waxay yeesheen guri u gaara. Heerka shaqo la'aanta ayaa hoos ugu dhacday 3% sanadkii 1980, halka GDP-ga uu ka kordhay $7 bilyan laga soo bilaabo sanadkii 1960 wuxuuna gaaray $360 bilyan sanadkii 2016. Dakhliga qofkiiba wuxuu kordhay $435 ilaa $80,000 sanadkiiba isla waqtigaas. Lee Kuan Yew wuxuu wajahay dhaleeceyn nidaamkiisa ah, kaasoo isagu si toos ah u soo maamulayay 30 sano oo soo bilaabatay 1960kii dhammaadayna xukunkiisa asagoo ogol 1990kii. Waxaa laga yaabaa inuusan ahayn hogaamiye dimuqraadi ah. Waxaa la tilmaamayaa sida badan qoyskiisa inay sii wada xukunka, sida wiilkiisa Lee Hsien Loong kaasoo xukunka qabtay sanadkii 2004. Laakiin wuxuu ahaa hogaamiye dadaal badan oo kor uga qaaday Singapore faqri liita una bedelay xarun maaliyadeed oo caalami ah, halkaas oo jaranjaraduhu ay buuq badan yihiin isla markaana musuqmaasuq uusan ka jirin dhammaan hay-adaha dawliga ah ee ka dhisan waddanka Singapore. Isla markaana baasaboorkiisa uu kaalinta koowaad kula jiro Jarmalka adduunka oo dhan. Sanadkii 2017 GDP-ga ayaa la mid ah wax soo saarka guud ee dalka Malaysia oo ay ka tagtay, inkastoo ay Malaysia ay 450 jeer ka weyn tahay bad ahaan. Ninkan waxaa lagu xusuustaa dadka reer Singapore oo u yaqaana wasiirkii macallimka ahaa ama macallimkii ugu sareeyay. Markii uu dhintay 2015, taariikhdu waxay u diiwaan gelisay dhaxal qaali ah iyo sumcad wanaagsan iyo waddan hodan ah kaasoo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka.